Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa mar kale iyo barnaamijkeennii taxanaha ahaa waanu kaga hadlaynay silsiladii caanka ahayd ee Guba. Waanu go'aansanay inaanu dib u soo noolayno iyadoo maqal iyo qoraal labadaba ah, maadaama dhalin badan iyo asxaab badan oo nagu xiran ay ku adkaatay inay fahmaan ereyada qaar ama maqalka ereyada qaar oo ku yara adkaaday. Haddaba qaybtii hore waxay noo joogtay iyadoo Qamaan Bulxan uu nimankii Habar Yoonis ama ninkii Maxaad Fiin ahaa ee gabiyey uu hanjabay una sheegay haddii aan gunno iyo xaalmarin loo keenin inuu tirin doono gabay labada reer ee deegaanka wadayaal ay iskugu go'i doonaan. Haddaba labadan nin waa Maxamed Fiin iyo Qamaan. Markay isku jawaabeen waxaa gabaygii u furmay oo gabayga lixaad maanta tirinaya Cali Dhuux Aadan, isagoo labadaas nin oo isku jawaabay dartood gabaygii ugu furmay. Maadaama awal hore ay gabayadu ka xirnaayeen Cali Dhuux Aadan oo uu ka xiray Qamaan Bulxan oo isaga ku eedeeyay inuu uga daran yahay Idoorka, ayaa maadaama labadan nin isku jawaabeen oo iskuna hanjabeen dhexdooda intuu ka faa'iidaystay ayuu gabayga lixaad ee maanta aan soo gudbin doono ayuu tiriyey, isagoo Qamaan ku dhaliilaya meeshuu ragga iska dhicin lahaa inuu asaga eedii saaray. Haddaba gabaygeena lixaad ee maanta oo uu tiriyey Cali Dhuux, noqonayana gabaygii saddexaad ee silsiladda uu ka tiriyo, maadaama labadii gabay ugu horreysay uu isagu tiriyey kana uu noqonayo kiisii saddexaad, ayaa Cali Dhuux Aadan isagoo ku halqabsanaya ninka la yiraahdo Maxamed Fiin oo Habar Yoonis ahaa wuxuu yidhi: dhankan ka hadlay waa kaa Qamaan dhaafay hadalkii, dhexxirka ha iska gooyaan lahaa dhuugga loo tolay, haddii dhaxal adoogaa la cuno waad dhadhamisaaye, waxaan cunaha ii dhaafin iyo dhaarshil baa jiray, naagahan dhankii loo rogiyo dhinaca diidayne, dhadigoodshaha lagu arkiyo dhiigga caadada haddayan dhiilka caanaha lahayn laguma dhaarteene, wax ka dhigan gobtii dhowrsataan ceeb ka dhiidhiine, nin dharbaa xaquudhee dugsaday dhaqayadeed maaliye, dhashaaday sugtaa xaajadaad dhowrataa abide, dhirfal buu isaaq marin intuu dhaco ogaadeene, karuur dhuumay dhaydana ka jecel oo ay dhammayaane, dhoobada Hargeysiyo Berbera waa dhita u taale, dharka kama maqaasheen hadday dhuunta jarayaane, waa dhagola yahay reer Subayr dhoohan weligiise, dhibta gaadha waa moog yihiin iyo dhaliishoode, anuunbaa dhalaalinahayee dhiiran mahayaane, intaan dhalasho waa yaab qabtaa dhab ugu ooyayey, dhaladu wax iga saaray culus dhabalna ii raaciye, dhudhunna waaba ii sheegtay adag dhillana igeliye, dhawaaqayga kuma faarixine waa ka dhiidhiyee, waayeelka dhaylada sitee dhowrta ku ilaasha, kuwaa dhibeedda soo xiranayoon dhuuni kala haysan, oo dharabta jeexjeexan qaba waad la dhalateene, dhafoorkaa ma yeesheen hargalay dhogor xumaantaase, dhoobada intay raranayaan dhaayin laga keenay, dharkaa lagu qasaashaa intay dhamal u daadshaane, rag baa caanaha dhami jidheen dhidh u horsadaye. Afartaasi waa dhaabad gabay iyo dhextaashiise, hadallo dhagaxyo waaweyn ka culus waa dhugsiin jiraye, maansada dhehun lama yidhiyo waa igu soo dhacaye, dudaheeda la yskuma qabtee dhibic kalaan baanay, dhinacayga ma ansaari karo dhuxulo naareede, goormaan rag baa kaa dhargay dhidibka kuu qaaday, dhaawacu ninkuu ku cusub yahay dhiigga farihiisa, oo shalayto kaa dhaansadaa dhowra kula yaale, waa kaa xeryaha looga dhigay dhogor idiin leeye, dhaqaalayna mayside naftaad kala dharroocdeene, libintiinnu maantay dhowdahay kuma dhaqaaqdaane, car ku dhaca haddaad dhalato hoo dhubka boqor hayso. Afartaasi waa dhaabad gabay iyo dhextaashiise, hadallo dhagaxyo waaweyn ka culus waa dhugsiin jiraye, maansada dheh uun lama yidhi waa igu soo dhacaye, dudaheeda la yskuma qabtee dhibic kalaan baanay. Ugaas magan dhawaaq kuma jiro dhimay wadkiisiiye, bal dhex mariya reer webi inuu dhaamo baxa waadle, Cabdulle aadankii dhaadan jiray dhab u ogeysiiye, uga dhoofsha dhidib muuse khalaf oo dhabta u saara,
cawliyaankii dhaantaynayiyo dhugadna gaarsiiya. Isixaaqa dhoobtiisii haray dabadda loo diidi, nimankii ku dhammanaanin jiray dhuubka ogsade darbaaxooyinkii soo ceshiyo dhabarjabkiinniiye. waa taa hablaha ciise dhamal dhiraha laayeene, kacoo dhidibka rida waa intaad dhimanba weydaane. dhambaal lalama yaaciyo waraaq sida dhabiileede, oo dhagaxan qaad iyo adeeg gaaladaa dhihiye. raacdadu hadday kaa dhab tahay dhabi dagaalkeedu, adoo dhidisan baa loo ridaa dhamac rasaaseede. raggaan dhibiyey waa kaa dhacsaday dhabiyo heemaa leh, qaban dhugo dhankaagaa tolkaa looga soo dhacaye, ayuu yidhi cali dhuux aadan oo ku halqabsanayay maxamed fiin. haddaba maanta intaas haynu joogto gabaygii 6aad ee silsiladii caanka ahayd ee guba, oo isagoo maqal iyo qoraal labadaba aynu soo gudbinayno. insha allah waa inoo mar kale iyo gabayga 7aad. fadlan haddaa kanaalka cusub tahay subscribe, haddaa horey ugu jidhayna liketa iyo sheerta iyo commentiga iyo araahdiina iyo afkaartiina intaba nala wadaag.